qisadani waxay ku saabsan tahay nin da' gaaray oo 90kii madaxa gelinaya. xilligii da'diisa ugu dambaysuu marayaa xagga qabriga ayuu hayaan u sii yahay, laakiin arrinka qabsaday ayaa wuxuu noqday mid dad badan ka oohiyey. odagani wuxuu ahaa mararka qaarkood mid waaya dareenkiisa da'diisoo weyn daraaddeed, waayo hoos waxaa u dhacay xasuustiisii oo laga yaabaa ilmo awow yahay ama uu dhalay inuu yidhaahdo adeeryaa ku dhalay. carruurtuu dhalay waxay u arkeen inuu yahay mid waalan oo isku dhex darsamay. waa qiso aad la yaabi doontid, laakiin dhinac ka tilmaamaysa waxa ilaahay ugu sameeyey wiilashaanoo aabbahoodoo da'ah dayacay, gurigiina ka saaray. meesha dadka da'da lagu xanaaneeyo ayay aabbahood u kaxeeyeen. aabbahani markii hore wuxuu u guuriyey 3diisii wiil. reer buu u dhisay. guryihiisii qayb ka miduu dejiyey, waayo wuxuu lahaa guryo badan oo isku weer ah. qayb buu ka dejiyey, asna qayb buu ka deganaa. hase yeeshee wiilashan 3da xaasaskii ay qabeen ayaa waxay isdareensiiyeen cidhiiri aabbahan dariska la'ah oo soddogooda. 3dii haween ee 3da wiil kala qabeen ayaa kulmay, waxayna degeen waddo ay oga saarayaan aabbahan oo soddogood ah guriga. waxayna arrinkaasi ku soo celceliyeen oo u sheegeen nimankoodii, yacni nimankii qaba wiilashan odagu dhalay, ilaa markii dambe wiilashu ay aqbaleen in aabbahood guriga ay ka cayriyaan. yaa subxaanallah, gabdhuhu waxay ku qanciyeen wiilasha in aabbe ay kaxeeyaan oo ay geeyaan meesha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. waayo bay dheen uma dulqaadan karno aabbahan odaygan noloshuu guriga nagula nool yahay. waxay dhaheen markuu miyir daboolmo oo isku dhex darsamo aynu kaxayno oo aynu geyno meeshaas. wiilashii waa aqbaleen arrinkay u soo jeediyeen xaasaskoodii. odagu mararka qaarkood xilliyada saacadaha intuu joogo mar buu miyir daboolmaa. markii arrinkaa ugu dhacay oo uu miyir daboolmay, gabdhihii baa u imaada iyagoo dhoolla caddaynaya oo ku dhahaya, adeer waxaan ku geynaynaa dhakhtar caafimaad. markuu odagii galay miyir dabool, gabdhihii waa alaalaaseen wayna farxeen, waayo waxay aaminsan yihiin fursad inay arrinkan u tahay in odaga la kaxeeyo oo la geeyo meesha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. marka miyirkiisu soo noqdana uu halkaasi isku arko. wiilashii way fuliyeen arrinkii xaasaskooda ay u sheegeen. aabbahood waa qaadeen, waxayna geeyeen meesha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. dadkii mas-uulka ka ahaa bay ku dhaheen, waxaynu odagan ka soo helnay waddada, ajar baynu ka kasbanaynaa ayaynu isdhahanayo meesha lagu xanaanayo dadka waaweyn geeya, marka waa kana naga qabta. bal fiiriya arrinkaasi meeshuu marayo. waa kadsoon yihiin, waxa loo kaydinayana ma oga. dadkii mas-uulka ka ahaa meesha dadka waaweyn lagu xanaanayo waa soo dhoweeyeen odagan, boos bayna u heleen. odagaanna ma dhalin oo aan ka ahayn 3dan wiil oo meeshan ku soo tuuray. markay bixi rabeenba waxay ku dhaheen ninkii mas-uulka meesha ka ahaa, hadduu odagan dhinto geeriyoodo, taleefankan naga soo wac ama gurigan lambarkiisa. ayagoo iska baxeen, iyagoo moodaya wax fiican inay sameeyeen. hase yeeshee aabbihii miyirkaa u soo noqday. markuu miyirkii u soo noqday, wuxuu gudagalay inuu u yeero 3diisii wiil. magacyadoodii ayuu ku dhawaaqayaa, markaana wuxuu doonayaa inuu ka codsado inay keenaan biyo weese ah. dadkii mas-uulka meesha ka ahaa iyo kalkaalaysooyinkii ayaa u imaaday, waxayna ku dhaheen, adeer isdeji, waxaad joogtaa meeshii lagu xanaanayn jiray dadka da'daah. aabbihii baa weydiye, wuxuu yidhi, halka goormaa imid, yaa isay keenay? waxayna dhaheen, maalintaa heblaaye ayaa timid, 3 wiil baana ku keentay. 3dii wiil tilmaantooda iyo siday u ekaayeen bay u sheegeen. aabbihii baa yidhi asagoo murugaysan, kuwaasi waa 3daydii wiil. kadib buu qacmaha kor u taagay asagoo habaaraya. yaa subxaanallah, ilaahuse waalidkeenna habaari. wuxuu yidhi, waxaana igu sameeyeen rabbiyow daraaddeed, waxaad ii tustaa maalinta qiyaamaha wejigooda oo ay naari daliiqaysoo naar lagu cadaabayo. ilaahuw jannada seeji oo jannada ha gelin, ayuu yidhi odagii aabbaha ahaa isagoo habaaraya 3dii wiil. kadibba wuxuu ka dalbaday ninkii mas-uulka ka ahaa meesha inuu u qoro dardaarankan. wuxuu yidhi, haddaan dhinto, guryahayga dhammaan iyo xoolahaan ka tegay dhammaantood waxaan u waqfay fii sabiilillaahi daartan, yacni meeshaan lagu xanaanaya dadka waaweyn. adinkaa iskale markaan dhinto buu yidhi, adinkay waqfidinta. guryahayga waa intaas, halkaasi ku kala yaalaan. wixii oo dhan buu u sheegay, waana ka qortay. dhibaatadan kumuysa jirin aabbahan muddo kadib oo weliba gaaban waa geeriyooday. kadib wiilashii waa farxeen marka la soo wacay oo lagu yidhi odagii waa geeriyooday. waxay ku farxeen aabbahoodii dhintay iyo xoolaha uu oga tegay, markaasi ayaga u muuqday. laakiin saacada kadib waxaa kadis ku noqday ciidamo boolis ah oo guriga yimid. waxaa wiilashii loo sheegay in guryahan dhammaan ay degan yihiin loo waqfay ama lagu sadaqaystay dadka waaweyn meesha lagu xanaaneeyo. marka waxaa lagu amray inay ka guuraan guryahan sida ugu dhaqsaha badan. 3doodii waxaa la yidhi, reerihiinna kala guura meeshaan, adinku iskama leehidiin, dowladdaa iskale meel dadka lagu xanaaneeyaana
laga dhigayaa ogaada malahooda ilaahay waa hoojiyey waxay islaahayeen marka aabbahood silaca uu ku dhinto xoolihiisii guryihiisaad ka dhaxli doontaan laakiin waxa ku dhacay fiiriya waa hoogeenoo waa khasaareen waa abaal markii wiilasha aabbahoodii dulleeyey oo ka saaray guryihiisa halkaana ku tuuray ayagoo malaynaya inay ka dhaxli doonaan guryihiisaan laakiin ayagaa la dhaxlay waa abaal marka adduunyada uu ilaahay ku siiyey maxaad moodaa midda aakhiro oo aabbahoodu ku habaaray uuna geeriyooday aysa maanta cafisna weydiisan karin ilaahay dadka ma dulmiyo laakiin dadku ayaga dhexdooda isdulmiya ilaahay qofna ma hoojiyo oo aan ka ahayn qofka asaga naftiisa hoojiyey